kulanti wacan wanaagsan daawadayaal meel walbo aad ku sugan tihiin kusoo dhawaada barnaamijkayaga qaybtan waxaynu ku eegi doonaa hadduu rabbi idmo wararkii ugu dambeeyay dagaalka ka socda xuduudda ay wadaagaan labada dal Itoobiya iyo Suudaan waxay la jooga guuleed oo inoo falanqeyn doona arrintaasi guuleed soo dhawow waa mahadsan tahay maxamed deeq saaxiibadeena kulay dabcan waan ku cusubahay inaan halkan ka soo muuqdo siyaabo kale inoola socon jireen niyahow waan dhowahay aad baad u mahadsantiin asxaabteenana waan salaamayaa marka hore waxaad ku horumartaa oo warbixin guud naga siisaa waxa uu yahay dagaalka ka socda xuduudda ay wadaagaan Itoobiya iyo Suudaan iyo waxa uu salka ku hayo waa mahadsan tahay mar kale maxamed deeq maalinimadii shalay ahayd yaa waxaa dagaal ka dhacay xuduudda Suudaan iyo Itoobiya dagaaladaasi oo u dhaxeeyay labada dal waxaa la sheegay in ciidamo Suudaan ay leedahay oo dhanka xuduudda meel u dhow joogay ay ciidamo ka tirsan dalka Itoobiya iyo Maleeshiya beeleed Amxaaro oo ay weerar ku qaadeen weerarkan shalay dhacay faahfaahin badan lagama bixinin dowladda Itoobiya kama aysan hadlin laakiin dhanka Suudaan baa iyagu warar ka soo saaray laakiin intaynan u gudbin waxa ay Suudaan ka tidhi weerarkan lagu soo qaaday ciidankeeda waxaa jirtay dhul xuduudda ku yaala oo labada dhinac khilaafaad muddo dheer uu ka soo dhaxeeyay dhulkaasi waa dhul beeraley ah oo beeraha qani ku ah in badan baana Suudaan ay sheeganaysay in ay dalka Itoobiya ka haysteen maxamed oo saad ogtahay Itoobiya sidii ay u gashay qalalaasahan iyo siyaasadan haatan maalmihii ugu dambeysay dagaalada gudaheeda waxaa jirta dalal dhul badan oo gudaha Itoobiya oo yani tusaale ahaan Eritrea oo kale la sheegay inay qabsatay Suudaan maalmihii la soo dhaafay iyada laftirkeeda waxaa la sheegay inay dhul qabsatay Itoobiya ay lahayd si kastaba ha ahaato Itoobiya oo iyadu wuxuu riixi jirtay iyadu dadka deriskeeda la sheegi jiray inay dhul ka haysato haatan iyadii waxay noqotay in la bililaqaysto iyadiiba haatan dhulkeedii la qabsadaa iyada calaacasho oo yani warbaahinta laga sheega in dhul Itoobiya leedahay la qabsaday waa maalmahan iyay cusub tahay arrintaas markii intaasi laga soo gudbo Suudaan waxay sheegtay in dhulkan haatan uu dagaalku deegaankan uu haatan dagaalku ka dhacay uu yahay gudaha dalkeeda Suudaan waxaana lagu magacaabaa Jabalul Abutur miyaa la yidhahdaa wax saasa deegaankaas marka waxay sheegtay Suudaan inuu gudaheeda yahay weerar gaadmaana lagu qaaday ciidamo ay Suudaan leedahay lama sheegin tirada rasmiga ee Suudaan halkaasi lagaga dilay ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa ku meel gaarka ah ee Suudaan waxay sheegeen in ay ciidanka Suudaan garab joogaan isla markaasina tallaabo ku habboon ay ka qaadi doonaan waxaa wararka haatan ugu dambeeyay soo baxay ay sheegayaan in aagaasi ay ku soo daabulayso Suudaan ciidamo fara badan oo xiisadba hadda halka ka aloosan marka la isku soo xorxoriyo waxaad moodaa furin kale oo Abiy Ahmed ku furantay iyo dagaalo kale oo halkaasi Suudaan kaga furmay isagoo markii horeba la daala dhacayay sidii uu u maareyn lahaa qalalaasihii iyo dagaaladii ka jiray gobolka Tigreega oo ay kooxda TPLF ku dagaalamayeen Suudaan ra'iisul wasaaraheedu wuxuu tagay dhowr maalmood ka hor magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya halkaasi wuxuu kula soo kulmay madaxda ugu sareysa dalkaasi waxaana la sheegay markii hore safar 2 maalmood qaadan doona in uu halkaasi ku joogi doono waxa xusid mudan inuusan dhammaysanin 2 maalmood warbaahinta qaar waxay sheegaysay in khilaaf uu soo kala dhexgalay labada dhinac qaar baa waxay soo tabinayeen in ra'iisul wasaaraha dalka Suudaan uu soo jeediyay in wada hadal lagu dayo arrinta gobolka Tigreega ee dalka Itoobiya ee qalalaas ka jireen taasoo Abiy Ahmed uu ku gacan sayday xagga Itoobiya warmaysa ka soo saarin safarkiina si degdeg u durba uga laabtay isagoo aan 2 maalmood dhammaysanin arrimahaas oo dhan marka waxaad moodaa inay xaaladihii murugsanaa ee Itoobiya markii horeba ka jiray bilooyinkii ugu dambeeyay haatan ay ku sii darmanayso furintan cusub ee Suudaan kaga furantay Itoobiya wixii ka soo cusboonaaday iyo hadii ay dib u baynu kala socodsiin doonaa asxaabteena iyo daawadayaasheen waa guuleed aad u mahadsan tahay haddii dagaalkan uu sii socdo Masar waxay fursad u heli kartaa soo lama oran karo wada ay mataqaana ku wiiqda awoodda Itoobiya si wabiga biixireenka aysan u suurtagelin
maxamedow marka laga yimaado masar suudaan laftirkeeda waxay qayb ka tahay khilaafkan webiga naylka markii hore dalka etoobiya gudihiisa ay xasaraduhu ka jireen wuxuu khilaafku kala dhexeeyeyba suudaan iyo masar marka haddii ay helaan fursad ah inay gudaha etoobiya jabhado xoogan oo ka dagaalami kara oo sida tan tigreega hadda buuraha gashay oo kale ay helaan suudaan iyo masar dabcan way ka faa'iidaysan karaan oo wixii tashiilaadaha ay kooxahaas etoobiya gudaheeda ay ku furfuri karaan ay u marin karaan yacni darisna way yihiin etoobiya marka waa khatar iyo culays hor leh oo abiy axmed iyo xukuumaddiisa kusoo kordhay waxaa xusid mudan in etoobiya haatan ay bilaha inagu soo aadan qorshaysay inay doorashooyin ka dhacaan gudaheeda qalalaasihii gudaha tigreega ka jiray balaas wadamadan dariska oo iyaguna dagaala ka furmaan masar oo iyaduna awood jirto oo tan africa ugu xooga badana oo iyaduna il gooni ah ku haysay biyahaasi oo nolosheedo dhan ay ku xidhan yihiin oo ka faa'iidaysan doonta doorashooyinkan kusoo aadan waxaad moodaa in culaysyo istartaray oo fara badan ay dusha ka saaran yihiin etoobiya iyo ra-iisul wasaare abiy axmed aadaad umahadsan tahay sidoo kale wadamada qabsaday qaybo ka mid a etoobiya waxaa ka mid ah eritrea hadna wax dagaal oo dhacay ma laha ma la oran kara abiy axmed raalli buu uga yahay arrintaasi niyow taasi waa mawduuc taagan waa run eritrea waxay qabsatay dhulkii la isku haystay ee baadhame dhulkaasi in badan bay etoobiya haysatay waxaana loo xukumay eritrea tigreega oo dee etoobiya marka hore majaraha u hayay wuu kasoo horjeeday haatan janis ba u heleen tigreegi haddii la jebiyey inay dhulkii qabsadaan marka dhulkaasi gudaha etoobiya way soo galeen wayna la wareegeen wayna qabsadeen calankii eritreana maanta ka taagan maraykankuna wuxuu ku baaqayay in ciidamada eritrea gudaha etoobiya soo galay ay ka baxaan ma aqaana inay tahay baadhame inuu ujeedo iyo in meelo kale oo deegaanada gudaha etoobiya ay kusii faafeen eritreanku laakiin sida etoobiyaanka loogu qancin doono inay ciidankaasi eritrea ee meelaha hadda qabsaday jooga loo maarayn doono iyaduna waa caqabad kale hortaagan ra-iisul wasaare abiy axmed marka etoobiya waxaa lagu soo ururin karaa un inay noqotay uun hilib bisola hadda la boobayo aada u jilecday soomaaliduna aada moodo libaax baktiyay inay weli moodeyso libaax nool marka etoobiya wataas waa taa la kala boobayo waata guuleed aada u mahadsan tahay ugu dambeyn waxaa jira warar sheegaya in masaajid ku yaala gobolka tigreega oo qadiimi ahaa waagii asxaabta ay soo hijroodeenna asaaskiisii la sameeyey in hadda ay biliqaysadeen amxaarada niyo maxamedow wararkaas way soo baxayeen saacadihii ugu dambeeyey masaajidkaasi keliya ana meelo badan yaa la biliqaystay oo gobolkaasi tigreega ka mid a maalmo ka hor masaajidka arrintiisa waa usoo laabanayaaye warbaahinta ciidamo ama saraakiil ka tirsan ciidanka etoobiya oo la hadlayay waxay sheegeen in xaruntii kaydka iyo dahabka iyo macdinta ee axum la biliqaysta marka waxay iyagu ku eedeynayeen kooxdii tigreega ee meesha laga saaray inay horey usii qaateen wixii hanti yaallay tan masaajidka markaan usoo laabanana waa mid ka mid a masaajidada ugu qadiimisan taariikhda islaamkaba axmedunajaashi baa la yidhaahdaa waa masaajidka ugu horreeyey ee geeska africaba laga dhiso waa masaajidkii asxaabadu markii ay kasoo hijroodeen xilligii nebiga sal alay wasalam ee makiya iyo madiine ay kasoo hijroonayeen ee imanayeen etoobiya lagu soo dhaweeyey ee ninkii taariikhda wanaagsan lahaa ee najaashi uu kusoo dhaweynayay marka masaajidkan wuxuu ahaa meel lama taabtaan ah oo qadiimi ah oo maxaan ku idhaahdaa wax badani ay ku dugan yihiin waxaa xusid midoo kale in qaar ka mid a saxaabadii etoobiya xilligaasi usoo hijrootay ay haatan ku aasan yihiin masaajidkaasi oo xabaalahoodii weli ay ku yaalaan marka masaajidkaasi iyo meelo badan oo kale waa la biliqaystay gobolka tigreeg oo dhanna markii aad fiiriso waxaad moodaa in kaabayaashiisii dhaqaalaha oo dhan wadooyinkii iyo buundooyinkii iyo eerboodadii iyo waxyaabihii ay bulshadu wada wadaagaysay oo dhan la burburiyey marka abiy axmed waxaa hortaala markii hadda lagaba yimaado caqabadahan dhanka amniga iyo maamul samaynta iyo jabhadahan iyo TPLF say u dhannayd dharkii unbay bedelatay waxay un ku biirtay shacabka marka shacabkan ay ku milmeen iyo amniga sugidiisii iyo sidii looga soo dhex saari lahaa iyo hubka dhigista iyo waxaasoo dhan marka laga yimaado etoobiya waxaa hor yaalla oo kale arrin mug weyn oo u baahan dhaqaale adag oo lagu soo celiyo kaabayaashii dhaqaalaha
ee dowladda ay ku shaqeynaysay sidoo kale xafiisyo badan baa la burburiyey oo meelo badan oo la gubay baa ayaa muuqanaysay meelo badan bay duqeymuhu ku dhaceen dad badan baa dhintay waxaasi oo dhan waa wax sugaya in ay dowladda Ethiopia ay dib usoo kabto oo usoo nooleyso waliba markii horeba la dhihi karo dowlad deegaankan Tigreegu mid sad bursaday buu ahaa oo wax badan oo uusan xaq u lahayn yaa xagga ku yaala geeyay oo tusaale ahaan warshadaha ku yaala iyo beeraha ku yaala sida u horumarsan yihiin iyo warshadaha ku yaala iyo dhaqaalihii Ethiopia intiisa badneed gobolka la geliyay 30 sano ee kooxda Tigreegu ay meesha maamuleysay marka kaabe wixii oo dhan dagaaladu intay socdeen dhibaatooyin badan baa soo gaaray Abiy Ahmed iyo dowladdiisana waxa looga fadhiyaa inay dib u soo celiso adeegyadaas waa tahay qowmiyadda Amxaarada waxay dagaal kula jirtaa soo lama oran karo qowmiyadaha kale ee dalka Ethiopia ha noqoto mid dhaqan iyo mid dhaqaalaba qowmiyadda Amxaaradu horta waa qowmiyad qadiimi ah oo Ethiopia in badan soo maamuli jirtay xukunka waxay ka maqnaayeen baan jeclahay inta hadda ay TPLF joogtay waxaana ka mid ah riyooyinkooda ay ku riyoodaan ay rabaan in Ethiopia mar labaad ka hirgeliyaan in Ethiopia hal meel looga arrimiyo Ethiopia hal caalan leh Ethiopia hal diin oo toodii ah leh bay ku riyoodaan waxaa jirta marka qowmiyado badan oo Ethiopiyada kala ah oo qowmiyadan cadaawad ugu qaaday arrintaas oo hadda tusaale ahaan iyagii Benishangul way dagaalamayaan Tigreega waynu ognahay waxa dhex maray Oromada deegaano ka mid ah iyagana waa lagu laayay Amxaaradu waxa weeye waxay u haysataa in iyaga loogu talagalay in Ethiopia leeyihiin maamulaan dadka kalena ay yihiin shaqaale u shaqeeya riyodooduna waxa weeye Ethiopia looga arrimiyo meesha iyagu ku sugan yihiin iyo calankoodii saddexda midab ee kaniisadda caanka ku ahayd hurdiga lahaa yani iyaguna riyadoodu waa taas dadkana difaac bay kaga jiraan marka colaad badan baa waxaa loogu qaaday riyooyinkooda qalafsan iyo Ethiopiyadii isku dulnoolaanshaha ahayd iyagu ay ku riyoonayaan iyo cadaawad badan loogu qaaday dad badan inay kula dagaalamayaan meelo badan bay waxay kula kulmaan weeraro oo dadkooda lagu laayaa Benishangul hadda waxa ka dhacay markii wax kale oo lagula dagaalamay yani hubkii kale oo dhan markii lagula dagaalamay qaansi iyo leeba mariidka maska loo mariyay waa cadaawad qaan gaadhay baabuurta ay la socdaan ee wadooyinka maraya waa lagala degaa iyagoon baana la ugaarsaday la dilaa marka qowmiyadda Amxaaradu iyaguna deegankooda dagaal bay ku jiraan oo Tigreega waxay ka geysanayaan waa argos masaajidada ay bilaqaysanayaan iyo dhulka ay hadda calankii dhargiga sureen iyo deegaanada ay Tigreega isku haysteen hadda maamulka u sameysteen iyo waxaasi oo dhan iyaga laftirkooda dagaal bay ku jiraan waxaan arkay maalinimada daraadahay 300 milyan oo bir in loo aruurinayo ciidanka maleeshiyaadka ee Amxaarad meeshii dooni baa ka dagaalamaan meelo kala duwan bay ku kala firirsan yihiin lacagtaasi waxaa loogu talagalay in lagu dhiirigeliyo ma jira deegaan kale oo sidaas sameeyay marka waxay ku muujinaysaa in deegaanka Amxaaradu ay dagaal diyaar u yihiin isku tashadeen meeshay ku socdaanna waxa weeye Ethiopia hal meel looga arrimiyo oo sidii ay dadka ugu adoonsan jireen ay ugu adoonsadaan waa hagaag daawadayaal aad ayuu u mahadsan yahay guuleed qaybtan intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa intaan dib u kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh